Ciidamadan la magac baxay Badbaadada Hiiraan ayaa goordhow oo caawa ah waxa ay la wareegeen xarunta maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybo kale oo ka mid ah Beledweyne. Waxaa ciidankan hogaaminaya Korneyl Cabdulaahi Barre Cilmi, abaanduulihii hore ee guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka, iyo sidoo kale sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha ciidanka daraawiishta Hirshabeelle. Ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka aadna u hubeysnaa ayaa markii ay la wareegeen xarunta maamulka gobolka waxay warbaahinta u qabteen shir jaraa'id. Saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa sheegay inay ka dhiidhinayaan in Beledweyne uu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo lagu waday in Beledweyne berrito lagu keeno hannaan awood ciidan ee ku dhisan tahay sida xogaha la helayo ee lagu kalsoonaan karo ay ku waramayaan. Waxayna sheegeen inay taageersan yihiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada Hiiraan ee kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle iyo Beledweyne in Cali Guudlaawe uu yimaado. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Caawa waxaa farxad ii ah anakoo ciidankii badbaada Hiiraan ah inaan si nabadgelyo ah kula wareegnay xaruntii gobolka Hiiraan laga xukumayay ayadoo wax dhiigo aysan ku daadan. waxaana kalifay in la badbaadiyo shacabka reer Hiiraan markay yimaadeen niman ka socda badbaado qaran oo waxay rabaan inay gobolka ay ka sameeyaan way noo cuntumi weysay haddaan nahay saraakiishii ka soo jeeday gobolka Hiiraan maadaama aragnay shacabkii iyo odayaashii iyo gabdhihii sida loo dhibaataynayo. waxaan go'aansanay in naftayna iyo maalkayna iyo dhiigayna aan u hurno badbaadada gobolka Hiiraan. ma raba in warka aan sii dheereeyo. waxaan ka codsanaa dawladda federaalka inay soo farageliso arrinka dhibaatada ka ah oo shacabka reer Hiiraan loogu tumanayo inay soo farageliyaan si degdeg ah u soo farageliyaan. annaka dawlad ma weerarin dawladdii aan nahay laakiin waxa ka dhiidhinay dhibaatada halkan ka jirta. waxaan kala rabaa inaan caddeeyo dadka caadaystay dhibaatooyinka shacabka reer Hiiraan inaysan maanta ka bacdi aysan taas u socdoon waxay caawa ka dambeeyay u suurtagelin. ciidamadu way la wareegeen xarun kasta oo ama lama galay ku taalo ama ha ku taalo xaruntii gobolka. halkan waxa idiga hadlaa waa xaruntii gobolka. insha Allah wixii ku soo xigan waad ogaa doontaan. lagu cubrinaya lagu dhibaataynaya haddii yihiin odayaal dhaqan iyo haddii yihiin siyaasiyiin niman shakhsiyaalaha waxay ay ku cubrinayaan xoog yaa laydiigu adeegsanayaa shacbow xoogaa laydi adeegsanayaa. waxaan rabnaa idiga samaysanaynaa hadda waxaasaa lagu samaynayaa ama saasaa la yeelaya ma dhahayo laakiin cid kastaa way ogtahay waxa ka jira gobolka Hiiraan. insha Allahu dhibaatadii jirtay caaway dhammaatay. idaacaddana aad iyo aad aan u salaamayaa shacabka reer Hiiraan aad iyo aad aan u salaamayaa cid in allaale intii igu hadafana waan salaamayaa. waxaan kaloon rabaa ciidamada qalabka sida gobolka Hiiraan yaan ciidamow aan la isku kii adeegsanin. kiina dhaawaca waa laga tagaa kiina jirrana waa laga tagaa kiina dhinta waxba looma qabto. sidaas darteed dhimasho iyo dhaawac dan ama danan liman leeyihiin ha u horsidinaha walaalihiina aad biyaha la cabtaan oo la seexataan oo la nooshihiin ayagana hadilina ayagana yeena idin dilin. wayatay caawa xaruntan hadda aad nagala hadlayso oo shirka jaraa'id warbaahinta aad u qabatay waa xaruntii gobolka oo sida aad sheegtay ciidanka badbaadada Hiiraan ay la wareegeen. berrito madaxweynaha Hirshabeelle lagu wada magaalada inuu yimaado ma madaxweynuhu inuu yimaado ayaa diidantiin idinku ma hadaf kale ayaad leedahay? bismillaah wallaahi shacabka Hiiraan joogaahay oo gobolka Hiiraan ku sugan wuxuu diidan anaka in dadkaasi shacabka oo tuutaan u gashanay oo anaka aan badbaadinayno in la cumbriyo ama la dhibaateeyo aan diidanahay. maxaa ciidankiina isugu jira mas'al ciidanatiin ciidankii kala duwan ciidanka ka koobantiin? ciidanku wuxuu isugu jiraa ciidamada qalabka sida federaalka iyo Hirshabeelle intaba waa isugu jiraa. aniga magacayga waa Nuur Dheere Korneyl Hirshabeelle nahay. gobolka Hiiraan dhibaatada ka jirta ayaan u imid. waan u dulqaaday weynay meel kasta oo jirno in gabadhayna maalin walba u iso odakayna la caburiyo waxaan u dulqaaday weynay waa
nimankan Hirshabeelle la yiraahdo oo dadka inay xoog ku gumeystaan raba gumeys waa la diiday saacan laga bilaabana gobolka Hiiraan annaga u dhalanay annaga aan la wareegayno haduu Ilaahay yiraahdo hadda maanta waxaan haysanaa xarunta gobolka Hirshabeelle wax la yiraahdo oo gobolka Hiiraan ay sii joogi karana ma jirayso mana jiri doonto marka bulshada reer Hiiraan qayladooda iyo cabaadkooda iyo baahidooda dhibtay saas darteedaan ugu horreeyay Hirshabeelle mana sii jirayso cali aan ima karin kuwa joogi karin Hirshabeelle wax la yiraahdo ma jiraan xaalad ka duwantii hore ayaa caawa ka taagan Beledweyne waxaana laga cabsi qabaa in isku dhacyo ay ka dhacaan magaalada maadaama ciidankan la wareegay qaybo magaalada kamid ah iyo sidoo kale xarunta maamulka gobolka ay yihiin kuwa aad u hubeysan ciidamada qalabka sida ee kale ee Beledweyne iyana ku suganna aysan wax sida u buuran isku jirin ma jiraan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle wali wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan xaaladan caawa ka soo cusboonaatay Beledweyne waxaana tani ay baajin kartaa haddii ay sii taagnaato socdaalkii lagu waday in Beledweyne uu ku yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo hamuun badan u qabay muddo 10 bil ku dhow oo doorashadiisa ka soo wareegatay in mar uun Beledweyne uu yimaado inkastoo magaaladu ay ka taagan tahay xasarado kala duwan oo ka dhashay doorashadii dhismaha labaad ee Hirshabeelle. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka Kalson, Beledweyne.